بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaanteen markaanu dhalanno qofka muslimka labada dhagood ayaa midna laga eedaa midna laga qiima. Marka uu dhinto qofka waa lagu tukadaa. maanta marka waxaan jecelahay inaan idin tuso qaabka saxda ah ee qofka meydka lagu tukado. haddaba si guud haddaan uga sheekayno, waxay leedahay 4 takbiiradood salaadaasi, male wax sujuuda, male wax rukuuca. waxaa lagu bilaabaa marka takbiirta ugu horeysa la xidho in uu qofku akhriyo faatixada alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaa dhammaadka. takbiiradda labaad baa ku xigta. takbiiradda labaad marka uu imaamku takbiirto ay musalliintuna ay takbiirtaan, waxaa ku xigaysa in nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu salliyo, waana ta ku jirta atixiyaadka uuna qofku odhanayo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وحكو حكتا إن تكبيرة دي صدحات تكبيرة دا مركا قفك يا لو دعايا تكبيرة دا مركا قفك لو دعايا وحنا غنكران قفك ليا والرقية دمر بالي وحنا غنكران لبا قف وحنا غنكران جمع. انتو مركا وحي ليهن دعوين قارة إن شاء الله تعالى waxaan sameyn doonaa commentika ka ugu horeeyay baan ku reebi doonaa qof walba markaa uu akhrisan doono. markaa waxay ku kala duwan yihiin in qofku hadduu nin yahay la oranayo huwa, haddii la oranayo markaa iyadana hiya la oranayo. oo soo kale imka allahumma ighfir laha warhamha haddii gabar tahay, haddii uu yahay ninna allahumma ighfir lahu warhamhu la oranayo. haddii laba yihiinna allahumma ighfir lahuma, haddii ay yihiin jamacna allahumma ighfir lahum warhamhum la oranayo. markaa takbiirada ugu dambaysa afraadna waa salaamo naqsigii. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساسو مركان نجي هاي مانتق فيديو بينه. آديات بدو ما سنتهين.